وتعالى لو حرناده وأمرت إلهي لقاته هدانو نماذنا جانب كمعاملات كدحدينا هديدنا عبيعتهي هديدنا عتجارتهي إن القرآن يهدي للتي هي أقوم طريقة ومونا سبوا ينوهرون إياه وحولي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وأحل الله البيع وحرم الربا رحم الله رجلا سمحا إذا اشترى وإذا اقتضى وإذا باع أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجانب كي بيع ما حاران إنك تاسع حاران إنك كبدي با حارانا قشكي با حارانا قرركي با حارانا جهالتي با حارانا ظلمكي با حارانا حولها ددكو بلاش نقولنا حارانا للتي هي أقوم بو إنك تصي جانبك عائلاتك أما أسرك اللو يقانو للتي هي أقوم بو إنك تصي ما قابك اللي سقور سنية سير الله وضع دقمية محو حقه قبضه ليدهي محو حقه ويلكو ليهي محو حقه ilmuhu leeyahay maxay qaraabadu leedahay qaraabada fog qaraabada dhow in alqur'aan yahdi lillati hiya aqwam janibka dawladnimo ayuu inagu hanuuniyo qur'aanku ummadaha see oo la dhaqmayna ayuu qur'aanku inagu hanuuniyay oo ina tusay haday tahay fi xaalati alharb xilli dagaal haday tahay xilli nabadgelyo haday tahay alqur'aan yahdi lillati hiya aqwam ayuu inagu hanuuninaya soo ma aragtid wuxuu aad quraanka uga hadlay jaanibka khuluqa iyo akhlaaqiyadka maxay tahay akhlaaqdeenu maxaan ku dhaqmaynaa beentii baa laynaga hadlay oo laynooga digay ala la'natullahi ala alkaadibin ba Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay nabigu wuxuu leeyahay inna alkadhiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila an-nar runtii baa laynaga sheega ya ayuha alladhina aamanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ilaahay maciisa saadiq noqo oo macallimiintaada macooda saadiq noqo oo waalidkaaga maciisa saadiq noqo oo mujtamacaaga maciisa saadiq noqo oo awlaadooda macaaga saadiq noqo oo xaaskaaga maceeda saadiq noqo kun saadiqan usduq maca allah yasduq nabigu wuxuu leeyahay ilaahay u run sheeg isna wuu kuu run sheegayaa umniyaadkaa wuu kaaga run sheegayaa baahidaaduu kaaga run sheegayaa baryadaaduu kaaga run sheegayaa waxa aad tallaabadaada iyo hadafkaaga iyo khuduwaadkaagu kaaga run sheegayaa usduq maca allah ilaahay run sheeg يصدق الرب كوشيغيا وكهانونيا اخلاقيات كي النبي محيري اكمل المؤمنين ايمانا احسنكم خلقا وكيدين كو اخلاقنا احسن قف ما انتو دن عاودن تكنيا او ما انتو دن صومن وها غاري كره درجده او جوغو قف اخلاق وناكسن ليمد اخلاق وناكسن maxay tahay waxawayaan Allah subhanahu wa ta'ala ka xisho asaga ayaa ku jeeda marka teleefankaaga haysato oo YouTube ku jirto oo buxuurta dulumaadka fasaadka gasho najaasada dhex gashid oo isleedahay cidi kuma aragto i'lam anna Allah yaraaka wa yattali'uk indhahan aad ku raaxaysanayso wax ku arkayso gacantan aad wax ku haysato dhagahan aad wax ku dhageysanayso allihii ku siiyo ku abuuray macsidan aad daawanayso waa uu ku jeedaa hadduu doono indhuhu ku tiraya qola ayaa u timid nabiyullaahi luud alayhi salaam markay u yimaadeen malaa'igtii ay u timid oo malaa'igtii ay loo soo diray qoomuluud inay halaagaan qoomuluudna ay dadka maxaan ku idhaahdaa ragga ay foolxumo ku samayn jireen asagu muuna garanaynin ma ogeyn way soo aadeen oo waxay dhaheen kuwan maarata caawa aan ka faa'iidaysanay dhaheen maxaa ilaahay yidhi fadamasna acyunuhum baa layidhi wejigahum baa malaku jibriil saa uga mariyey gacanta qadaadkii wejiga baa isku mid noqday ma waynaan alle ka xishoonaynin markaan xumaanta daawanayno indhahan in ilaahay ba gacanta ka mariyo xageed aadi maxaa ku daawan maxaa Facebook ku gali maxaa YouTube ku gali maxaa Twitter ku gali maxaa WhatsApp ku gali Allah waa inaan ka xishoonaa innaga dhaxdeena akhlaaqiyadkeena waa inaan ilaalinaa Aisha ayaa leeyahay nabiga khuluqiisa ka waran waxay tiri kaana khuluquhu kal qur'aan qur'aanku ka amar qaadan jiray naftiisa waligii uma aragoosan laana qur'aanku ka amar qaadanaya ilaahay marka wax lagu xadgudbo sharcigiisa buu nabigu u cadoon jiray laakiin naftiisa intii la dilo oo la garaaco oo dhibaato lagu sameeyo oo la xanuujiyo kama argoosan jirin adiga maanta miisaanka isa saar saa hadduu arday ku taabto waa taaban hadduu macallin xoogaa ku canaanto gafuurkaa taagi haddii waalidkaa ku canaanto xagga kale u jeedsan cidna uma dulqaadanaysid aaway khuluqii yaa ikhwa waxa ugu muhiimsan oo la rabaa inaad ku noolaataa waxaa la rabaa inaad ku noolaato wax la yidhahda التغافل يا عقل بدن وعاقل يا غبي مسألة waxaan rabaa inaad fahantaan qofkeeba caqli xun oo qabi qof keeba caqli badan qofka caqliga badani ma aha
قفك وحول بفهمه وحول بنك الجوابه تا عقل بدل معها وفرص هذا الكيغا قفك وحول بنا فهمه وحول بينات فهمته ومهم عقل بدني وي في عنتهي لكن وحول بينات كجوابتها صح معها wax badan waa inaad ka jawaabin naftaada wax badan waa inaad uga raaxaysaa maxaa yeelay haddaad tiraahdo wax kastaan ka jawaabaya adiga dadku waa iska hor imanaysaa ummadda waa iska waxyaabo badan ood maqlaysa inaadan maqlaynin iska dhig khaladaad badan oo lagu samaynayo inaadan arkaynin iska dhig akhlaaqiyadkaasaa laga rabaa buucithtu nabigu muxuu yidhi buucithtu liutammima makaarim alakhlaaq akhlaaqda iyo wanaagga ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay wax badan baa laynooga sheekiyey waan ognahay waxaa laynaga rabaa taa inaan ku dhaqanno jaanibka tacliimta u imow ina alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam baa alla leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu darajaad buu alla kor u qaadaya dadka cilmiga ilaahay subxaana watacaala uu siiyey cilmi baad baranaysaa cilmigu ixtiraam baa lagu bartaa adab baa lagu gaadhaa khuluq baa lagu gaadhaa wanaag baa lagu gaadhaa ixtiraam baa lagu gaadhaa arday baa tahay dhallinyaraa tahay waad soo koraysaa maanta wixii naftaada aad ku tarbiyayso ood barta bay la weynaanaysaa man shabba calaa shayin shaaba calayhi qofkii wax ku barbaara waa uu ku gaboobayaa maanta maxaa lagaa rabaa inaad ku barbaarto waxaa lagaa rabaa inaad ku barbaarto cafis iyo samxi iyo akhlaaq wanaagsan iyo hadal wanaagsan iyo bixin iyo cataa inaad wax bixiso maanta isbar 4 kun 5 kun 10 kun aad haysato ku noqo qof deeqsiya ku noqo kaan haysan shaaha ka bixi oo saambuuska u gad oo qalinka u gad sidaabaad berri ku weynaanaysaa haddaad laakiin noqoto shuquur baqiila oo waxba ka soo dhacaynin oo in wax lala cuno aan ogolayn oon dulqaad lahayn oon qofna u sabraynin oo qolinka dheerigaa cidna aan siinaynin oo warqadda qofka u baahan aan u goyn karaynin haddaad noqotid sidaa unbaa ku barbaaraysaa berri dhibaataa ku qabsanaysaa adiga xaaskaa u saa soo dhaqataan ma taqaanin ilaa waxaa tahay ninkaa ku soo barbaaray qanaacnimada iyo qaabdarrada maxaa laynaga rabaa marka alqur'aanu yahdi lilatii hiya aqwam baa laynaga rabaa soo ma aragti haddii khilaaf yimaado haddii isqabsi yimaado qur'aanku dariiqo wanaagsan buu inoogu hanuuniyey waddo wanaagsan buu inoogu hanuuniyey oo loo baahan yahay inaan marno oo maxay tahay waddada wanaagsan waa in aad qofka walaalka ah adoo kale ka soo qaadaa waa inaadan faajirnimo samaynin nebigu muxuu yidhi aayatulmunaafiqi 3 munaafiqa calaamadihiisu waa 3 idaa xadatha kadab wa idaa wacada akhlaf wa idaa khaasama faajir munaafiqa aayadihiisu waa 3 hadduu sheekaynayo been buu sheegayaa hadduu ballan cid la galo ballantii buu burinayaa haddii uu qof la doodayana waxa weeyaan doodii buu kaga xoog badnaanaya faajirni buu samaynaya waxba iska ilaalin maayo ina alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ixtiraam baa loo baahan yahay adiga iyo macallimiintaada idin dhexeeyo dulqaad baa lagaa rabaa aad dulqaadatid oodan raddu ficli samaynin oo haddii lagu canaanto haddii albaabka lagaa xidho haddii jawaabta lagaa khaldo radul ficliga aad samaynaysaa waa inuu noqdaa radul ficli waxaa la yidhahdaa jawaabta aad bixinaysaa waa inuu noqoto jawaab musaalim ah jawaab nabadgelye ah istifsaar yaa macallin meesha maxaad iga khalday anaa kaa saxsanaaye waxaa ka qurux badan macallinow bal meeshan ila fiiri bal hadda fiiri macallinow bal meeshan ila fiiri shaki baa iga galay inaad tiraahdo iyo inaad tiraahdo anaa kaa saxsanaaye maxaad iga khalday hebel baa u saxdee waa kala duwan yihiin waalidkaa macaan kula dhaqan ardada macaan kula dhaqan ixtiraam kula dhaqan gabdhaha bidaad waxaa la rabaa oo islaamkeenu ina baray ixtiraam cirdiga waxa la yidhahda maxaa weeye asalkiisu waxa weeyaan waa qofka xumaantiisa waxa daabanaya laakiin waxa ugu weyn oo ku wareegaya waxa weeyaan gabdhahu ixtiraam gooni ah bay mudan yihiin inaad ixtiraamtaan